السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بان إدين سلام يا مركز جوكتاني إيسي كستو آدي مغليسان هالكني ومرتهاجي وحن جعل هاي مرتوى حاليري شيركيس الهايس تجدين كم قصلو قف أساقي وحوي لقني هاي أو سوشيال ميديا عيبتيسي تارلو هدو إلى هذا وآموسيا أو حيريو وحبادن حيريو رهانتي بي أدكانيسا إنو متقانا قوكاس عافي مادهان iyo maskaxiyan iyo caafimaad ahaanba u noolaado way adkaanaysaa. intaan u gudagelin barnaamijkan ka gulayahay qof walba uu fahmayaa, qof kastana uu garanayaa. waa garnaqsanayaa maanta Soomaaliyay inaan garnaqsado ayaan halkan soo fariistay maanta. aniga oo garnaqsanaya haddana garnaqsigaasi waxa igu keenay halkan oo social media wixii ku jirana dee waa si ugu jiraan kama baxayaan. waxaan rabaa marka barnaamijkan inaan ku dadegin in aad mataqaanaa idinku aad mataqaanaa aniga oo xaqa iyo xuquuqda aan leeyahay difaacanaya inkastoo aysan meesha maxkamadii ahayn haddana in aan ka hadlo waa ka fursan waaye bal video marka aan wada daawan arrin aan ka naxay baa la ii soo sheegay arrin aan ku farxin baa la ii soo sheegay والحمد لله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون ولا له قالي وحين قعد صنايا وحال المصورة أنا قال لي هاي وقاون وويب سايت كجرة وسوشيال ميديا هوريقايا وانا مصورة أنا قال نكي قبي قعنتيس أنكو أوغا أنا لبض السنة قبي لبض السنة إلى النولا aan gacantiisa ku ogaa aniga laba habeen ka hor oo ilaahay igu og yahay ilaahay maqlaaya oo sankayga neefta ka bixinaya maxaa la dhahaa laba habeen ka hor oo video la ii soo diray qof aan garanaynin iyo number aan garanaynin WhatsApp-ka iiga soo dhacay waa fiiriyay waan ku naxay ilaahay iga sareeyo waxaan adduunyo waayo waa laga tagayaa adduun iyo aakhiro waa kala badan yihiin xaqiiqa aniga haddaan been sheegayo oo aan been ka sheegayo videoga laba habeen ka hor la ii soo diray qof number aan garanayn la iiga soo diray wuxuu ahaa video wuxuu ahaa aan ku ogaa ninka ay qabay khadar gacantiisa waa gartay okay marka hal mid baan rabaa marka dadku caqli bay leeyihiin qof bini aadamka ah برنامج شرط أنك هالله هو برنامج أنا اللي جوسو إيدي ولا شيء فهمه واحد يقول تري خضر فيديو يال آن وكوجا أيو يوتيوب أيو ويب سايت كليه أو نمكن يهرو إقبال بوها ويب سايت أيو يجليه أو ويب سايت ك وحياة رقم محمد على جليه وأنا قصة كوجا يعني أدري وقلي كرتاس أيان ربا إنان كرنقصله سؤاشاس أي ولا شيء سويش جديد أيان ربا إن وحي كرنا وحي كبينا بقى أنا هرت إدين بياني ما ديدنا هرت أنا كنا حاسكي هراء فهيمة أن تطوى اسقبوا وانا كوضا نورا أحين لكن تنواك بدبدس مرة كان وحواي وحين أطول هذا كرامة أوكي فيديو جمرك سؤال إذنك أنتين أقل جرب عن لحظة يا سؤال شكوات فيديو واحد مرك كوات فيديو واحد كل هذا ويب سايت بال يوصل شيء إيالان واي هذا ما عم بسكت وريسي سي واحد كل هذا فيديو لما مالي كهر با واتساب لا igu soo dirayo aniga oo mataqaana video noocaas oo ninkayga aan ku ogaa ayaa halka la galiyay bal labada horta isqabadsi wala shay fihiyo aan ka sheegaya videoga laba habeen ka hor la ii soo diray qof number aan garanayn la iga soo diray wuxuu ahaa video wuxuu ahaa aan ku ogaa ninka ay qabay khadar gacantiisa okay su'aasha labaad waxaa tiri kayskayga maxkamad waxaan geeyay booliis baan geeyay meeshan waa UK waxa weeye waa la kala baxaya xaqa iyo xuquuqda qof u leeyahay lama duudsiinayo kayska markii la geeyo booliis ee statement la qoro way adag tahay in qofka xataa uu qof kale xiriir la sameeyo kayska marka booliiska la geeyo booliisku wuxuu sameynayaa qofkii wala xiriiraya sooma waaye adiga oo kayskii booliiskii sidee iga codsan kartaa videoyash adiga haysa delay taasna arinta ka dambaysa idin sheegay
midda saddexaad laba qof oo isqaba oo xalaal isu qaba sababta ay video isugu duubayaan oo ay qof kale ugu diraya maxay tahay maxaa looga baahan qofkii nool baaba lahayaa qofkii oo nool baaba halkan taagane sababta video sawir image dhaqdhaqaaqaya ama video socsoconaya faa'iidada uu qofka naandada waaweyn baan nahay moogtahay 15 jir kan ugu yar meeshan ku jira 15 jir waa gaar video image dhaqdhaqaaqaya iyo qof nool oo neefsanaya farqiga u dhaxeeya idinka waa fahmi kartaa nin naagtiisii haysto oo la jooga video image dhaqdhaqaaqaya wuxuu uga baahan yahay markaan joogay aan kala maqnayn oo aan waayada wada joogin oo ama Afrika aan jiray ama mataqaanaa hal iyo ha tiraahdo ha video iga duub wax noocaas aan u duubaya u diray iga qalqalkii laakiin waa wada joognay xilligan wada joognay video uga duubay daynaad aqliga dadka ka gadan day ma soconayso aan rabaa inaan aniga oo aan khadarna iska dhigayn fahimana iska dhigayn inaan xaqiiqada bayaaniyo kadib aan isu buuxsho anigu aan isu garnaqsado idinkana aan xaqiiqada intu okay midda saddexaad 2019 bishii October haddaysan ahayn September dhamaadkeedii October labadaa mid inay ahayd baan jeclahay 2019 bishaara cali baanday walaashay way joogtaa waa markhaati nool okay video ay naga duubtay aniga ayada oo fahimo oo wada joogno waliba aniga oo ka qeyraysan oo ka xun waliba dadka qaar ay ceeb iga dhigay leeyahay isu oohiyo been buu u jilay leeyahay baa jira videoga waxay ku leedahay khadar wuxuu igu garab istaagay khaladka ninka Jarmalka jooga ee galay marka Jarmalka aan soo sheegaya wiil waxa jira Jarmalka jooga oo mataqaana maslax iyo miyaal oran jiray wax noocaas ah in fi ay wada sheekaysan jireen anigu ma intaanan afahimay isguursan fiidiyaal ay u dirtay ninkaas oo ku rikaateeyay kadib markaan uu ogaaday inaan isguursanay oo ayada ku rikaateynaya jira fiidiyaasha marka social media si kasta waa yeelo waa ka saari weyn si kasta oo dacweyni meel kasta waa maray meel kasta way yeelaa marka fiidiyogaas image-kaas waa mid xaqiiqa oo jira oo YouTube-ka iyo Facebook iyo meel walba yaala waliba ka hadda mid maaha kuwa kale aan ka saarnay oo yani aad u foolxun baa jiray oo kuwaas ilaahay wuxuu nagu guuleeyay inaan gacanteeda ku saaro wiilkii lahaa Facebookgaas yani gacanteeda ayaan uga saaray Facebook oo kanaalkiisa waa channelkiisa ciwaankiisa waan ka xiray okay marka wiilkaas marka aan idin sheegayo video marka ay ku leedahay jiray wiil baa dhibaateeyay halkaas jooga bishaara ay uga sheekaynayso waa videogaas waa duuban yahay sidaas inta taanu soo laabano tii haddana dib ugu noqono dhibaatada bulshada idin geysatay isku dirkeena waxaan ka warqabaa inay xataa ay sawirro khaldan ama waxba waan ka xumayna ku weydiiyo fahimay laakiin aad raalli ahaanshiyaha ka weydiisanaya sawirro iyo waxyaabo khaldan in lagugu dhibaateeyo oo ninaad soo sheekaysan jirteen hadda ka hor khadar ka hor uu markuu ogaaday inaad maanta family noqotay xilligii uu khadar waddanka yimi uu markaas si musalsala uu soo dhiga baraha bulshada ninkaas Jarmalku degan yahay magaciisa saddexan maxaa la yiraahdaa wiilka waxaa la yiraahdaa Cabbaas Cabdiraxmaan wallahi muddo yar baan isla soconay intaan qadar magaalo ahaan ku ka yimid magaalo wuxuu degan yahay Frankfurt tuulo yar Frankfurt agteeda oo degan yahay marka Norway uu deganaan jiray waxaas ku lahaa uu gabar buu dhalay gabar yar buu leeyahay 5 jir Norway buu ka soo guuray xaaskiisa way kala tageen wiilku waa wiil habar wuxuu ka soo Jarmalku u guuray 17 ha wada ka fiican baan dhex martay oo yaani waxa xitaa ku heshiin in aan u tago oo isguursano oo halkan keenay maxaa laakiin cadaawada gaarsiiyay bay kula tahay in heerka sawiradaada oo adeegsada baraha bulshada sawirada qofka waxa waaye sawirada marka la soo dhigay waxaan arkay dad badan oo ku qoslaayo anigu ma farxo sawirkayga in public la soo dhigay nin wax soo guursado gabar dhalayo waad ka filan waan ka filan waay runtii masawirka ugu horeeyay 2017 ku soo dhigay masawirka ugu horeeyay hadda la xidhiidhay sawirkii ugu horeeyay markuu soo dhigay ma tii Cabbaas Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa Cabbaas Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa وانا سجوبة دي قلت لي يعني هركو دكانيو دكانيو جرمالكنا مقالة دي بو كدكانيو جرمالك مقالة ير بو كدكانيو هذا مقعد ما حسوست لك فرانكفورت marka saan u fahmay sheekada ninkan khadara waxa la rabaa in la yiraahdo videogaas looga dhigo dhaleecayn iyo aag marka waxa la rabaa videogaas in aniga dusha la iga saaro saan u fahmay ama wax kala jiro videogaas video aan ahayn baa la duubay oo qola kale ama waxba la sameeyay oo kanaal baa la geliyay si aniga la yiraahdo asaga ku ogaa oo u diray si aniga la igu yiraahdo
okay intaas horta waa isla fahanay soo ma anaa soo haray marka aniga khadar ah intaan website sameeyo aan image xaaskaygii xalaashaydii gogoshaydii maryahaygii in aan geliyo xataa waali u malayn ma inaan gelin karo wallahi iska daa miir qab iyo mataqaanaa anigoo caadigaygaan inaan intaan geliyo oo qasdo inaan YouTube inaan intaan sameeyo fiidiyoyaal aan qaado aan website geliyo inaad yaro waxa way gar wallo islaam macquul meel noqon ana waa xataa wallahi isma macquul noqon okay arinta marka maxaa ka runa maxaa ka beena inta markii la ogaado qof walba ogaanaya meesha wax ka jira arinta marka hada ay sheegay shaakaas cad aan qabo waxa soo gashtay wax kala ma arinta ugu weyn ee laga ugu muhiimsan ee meeshan laga rabo waxa weeye in shaakaas cad la wasaqeeyo sharafteeda lagu dhaco maqaamkeeda lagu dhaco diinteeda loo gafo la icaayo la idibaateeyo mataqaanaa in aan nolol samaysan lagu dadaalo waa group iswata oo barnaamijkan ugu talagalay in ay aniga igu dhaleeceeyaan igu dhibaateeyaan ay mustaqbalkaygan ugu ciyaaraan waa u fahmay dad yarna ma ahan okay marka Soomaali weyn baa marka hal mid weydiinaya Soomaaliya shalay wax walba waa idinka qaat Soomaaliya shalay wax walba waa igu tiraahdeen Soomaaliya meel kasta shalay waa igu rafaadiseen Soomaaliya si walba shalay waa iga yeesheen wax allaad ay wax harteen waa iga samaysateen saasa ay kala goosgoosateen laakiin maanta idinka yeeli mayo aniga oo sidaas la isi ceyrsanayo intaas oo dhibaato awli aan aamusanahay oo xataa cadaymaha aan hayo oo waxyaalaha aan hayo oo dhan aan soo bandhigin oo aan fahmin arinteeda ka hadlin oo la aamusan haddana idinka qaadan maayo walaalayaal dulmi aniga cad la igu sameeyay har cad inta la soo fariisto qof ilaahay maankiisa iyo garashadiisa iyo muuqaalkiisa dhamaystir intuu aniga soo fariisto uu rabo inuu igu aflagaadi igu dhaleeceeyo igu dhibaateeyo sharafteedan ku ciyaaro Soomaali idinka qaadan maayo okay in qofkii aqal la waay taarto waa wax shay inta ugu filan fahima ay soo hartay fahimo runtan ku sheegaya wala marakan farta aqortid waa kula qoraya farta aqortid waa kula qoraya waxaan ka wadaa horta aniga YouTube dambe barnaamijkaaga ku saabsan ma ka hadlay kana ugu dambayna waana balan sababta aan uga hadleen waxa way meesha maxkamadii ma ah wadanka aan wada joogno sharci baa ka jira qofku sharci iyo xuquuq iyo leeyahay laba statement baa loo kala qaadaya mid waa domestic violence oo qofka hadii dhibaato u geysto yani qaabta ama tusayso wada mid labaad ee aan raba inaan sharciyan ugu wada hadalno waxay tahay qofka porn star ama sameeye fiidiyoyaal khalad ah qof ka sameeyay oo gudbiya revenge porn site sharci la yiraahdo qabanaya qofkan wuxuu kaaga yani wuxuu isku dayayaa in uu kugu dhibaateeyo fiidiyoyaal noocaas hadii marka qof noocaas oo kale meel sharci wada sharci u jooga uu sameeyo sharcigaas qabanaya waa intaas oo sano xariga dhibaato intaas ay buu maraya dil waayo marka blackmailing baa la yiraahdaa hadaa marka aniga blackmailing ugu sameeyay oo adiga ama soo jeeda ama sii jeeda video intaas aan website gelisid oo aad rabtid in aniga ugu dhibaataysid horta evidence baa laga rabaa wadankan wadan sharci la waayo sharciga kala baxayna wallahi billahi tallahi markan ay ka dhamaatay aniga kuma ceebaynayo kuma caynayo kuma dhaleecaynayo kuma dhibaataynayo waana isubaa guurka ilaahay baa jideeyay furitaanka ilaahay baa jideeyay laba wada loo kala yeelo haddii marka nolosha la isku fahmi waayo guurka oo wada noloshaha la isku fahmi waayo ilaahay wadadan kala jeeyay wuxuu yiri walaalayaal kala baxa ku kala taga maxaa ii daba socotaa maxaa iga rabtaa soomaynaan kala tagin soomaynaan kala harin walaal allaha muuse allah ahayn ma iga harti inta hadaa fahmi weydid sharci baa noo dhaxa kiiska booliis baa geysay Soomaha booliskan sugayaa maxkamadda hadaan waayeen anaa geeniye kiiska oo wallahi oo billahi oo tallahi anaa geeniye waayo waxaan it's too much way ka badan tahay intii xadki waa dhaaftay fahim marka xadki markan waa dhaaftay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qof walba ay nabadgeli shaydaan jin wax walba qof kasta oo nool aniga nabadgeli ana la xisaabtamay
laakiin adiga waxaagu ma ahan nabad waa kaa waay xalay iyo habeen hore iyo hadda aan kula hadlaya indhahayga u jeedaan wallaahi bilaahi tallahi waa ka nasan waaye barnaamijkan waayo falsification toos oo loo jeedo haddaa marka caddayn igu haysato maxaad maxkamad u aadi weyd maxaad booliis u aadi maxaad u dacwoon weyd ilaa waddan sharcigaa joogtahay maxaa gacmaha kaa xiray dee waxaaga waa gumaysi laakiin aniga hadda bis qof la yeelan kara ma jiro maanta 2021 baa la maraya qofna qof ma yeelan karo iska daa adigu iyo ilmahaagaada xataa yeelan kara iska daa qof weyn oo nool oo meel maraya ilmaha adigu aad dhashay baada yeelan kara 2020 oo dhan baa cay iyo ceeb iigu dhashay iiguna dhammaaday 2021 ma igu daraysaa miyaan ilaahay aqoon miyaan aakhira la jirin miyaan la isxisaabinayn miyaan la kala xishoonayn oo miyaan la jirinay maanta god qof walba oo nool god ilaahay u samaystay ila gelinayo miyaan xaq u shaqaynayn miyaan ilaahay laga baqayn arrintaa marka ma rabo inaan ku dheeraado inay qeyra iyo cara i qaado ma rabo laakiin waxaan rabaa waddo kasta oo sharci ah oo barnaamijkan u mari kara inaan u maro fadeexad iguma yara ceebeyn iguma yara dhaleecayn iguma yara xumaato iguma yara wax kasta waan qaatay waan liqay intaa ka badan waan qarxaya intaa ka badan waa liwa barnaamijkaaga waa faan wala barnaamij aan dhammaanayn waa arrintan marka sida aan xaqiiqada aan doonayo waxay tahay inta caqliga leh oo ilaahay garanaysa way garanaysaa qof mar dhahaya waxa way video website baa la igu soo sheegay haddana codka la soo duubayo oo dhahaya video waa la isoo diray 2 maalin ka hor marka ay leedahay videoga website ku jira xalay ma habeen hore ahayd xalayna waxay ku lahayd 2 maalin ka hor baa video la isoo dirayo WhatsApp lambar aan aqoon baa isoo diray waa been cad أنا مرة بنا قبل ولا شيء مسكين تا أنا دلمي ما دوني قف كلا أنا دلمي لكن سدا أي تا أنا ونا حقي كتجي معي قف كهدي مركب فيديو ولي هاي وديره أما أودي لذكري أما قف كلا أوديره ولا سهلية ويب سايت أكون كلية ولا هلية ما تقانا ماشي وكسوري ولا هلية أي بأدرس بحياة شر قف ماشي وكاستعمال فيديو وهذا أندوبيو ماشي أنا كسر قلي حتى ولا هلية هذا أمودي فهمه إنه وحرسويه Modern world baan joognaa wax walba waa digital waa recording waa evidence muhiimadda ugu weyn aad leedahay aad ka leedahay barnaamijkan marka aan soo noqo ani adigu waa soo laba qof oo qof waxa la yiraahdaa si aad u baratid ama jidin la cun ama jid la raac ama jidin la cun ama jid la raac marka lagu leeyahay qofkan si fiican baad u baranaysaa qofku ku yaqaan aniga waa barnaamijka aad ka leedahay oo dhanna waa ogahay siyaasadda isticmaalaysa intaan dhibaataa maxaan u marayaa waxaan oo dhibaataa maxaan u maraya waxaan oo hadal maxaan u dhahaya waxaan cadayna maxaan u keenaya bal gabadhaas hakaada ka had ma iga harin mana iga haris anu marka ehel baan leeyahay tol baan leeyahay dad ilaalay baa jira haddaan khaladka anigu aan geystay waa kaa garbaxaya tus baan diyaar baan u ahay haddii aadan waxbana igu hayna allaha aad laha duyaha iga har ummadda soomaaliyeed marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dulmigaan cad oo walaasha igu samaynaysa qof walba aqal lagu fahmaya qof kasta oo garasho lagu fahmaya qofkii aan fahmayna ee qof diin iyo garasho ma aha ilaahay wuxuu jireeyay qof islaam ah oo aad gogol la noolaatay oo aad la dhaqantay oo aad la faraxday oo aad la qososhay haddii aad been dambi ka gashid waxa weeye adaa waxaa tahay qof xun adigaana mataqaana xaqu feeruka dilaaca marka barnaamijka hadda waxaan u fahmay xaqii baa dilaacay haddii afka la qabto xaqa wuu dilaacaa حق هذه أفكار غلط ودلع في مشروع أنا أيضا فيديو يداس عن شحمة على السوشيال ميديا أو دم كتير أيضا أنا بان أنا قرب أنا حبت أطول ونكو إذا أنا ديار أنا ولا شيء قرب كاجا أنا أيانا ديار كوا مرك أنا شري فيديوهاش أدقو سيد خلطة أصلا يسي هذه أنا أحدنا ولي أنا يقول لي باتينسي ولا الوحوي شقي بعينك الصاري مرك شقي بعينك الصاري عاد بلدي سلام يا برامجك إنا كل هذا متشعلي إنا كسر هذا متشعلي لكن واحد أوقاتان أرنتان عاد بيوصل على وقت يقول إراتي إن نتقنا برامج كان أنت صومالي أنت عقل له وحن ليه
walaalayaal barnaamijkan gabadhan waa igu dhibaataynaysaa haddaan barnaamijkaas aan sameeyey waa la ogaanayaa iyadoo bilaabarya ah ayaana maxkamadda istaajinaya diyaar baan oo marka barnaamijka oo kooban waxaan doonayaa insha allah inaan sidaa kusoo gabagabeeyo aad iyo aad baan idin salaamaya barnaamijkan isgaarsiiya sii sheer gareeya khayr iyo barwaaqo idin rajeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nooli kulad